xaaladda magaalada Minneapolis maanta waa sidaan waxaa daqiiqado ka dhiman doorashadii in lagu dhawaaqo natiijadeeda dad badan oo Soomaali ah ayaa tartamaya dad kala duwan ayaa halkan buuxa maanta oo sugaya natiijadaasi waxaan taaganahay xaafadda Cedar oo Soomaali badan ay degan tahay waxaa ii suura gashay inaan arko saaxiibkay Xuseen Kanaac ka mid ah wariyaasha Soomaalida Xuseen bal xaaladda Soomaalida ka war maanta أهلا وسهلا وصل من ذاتك أن جوجين من السورة أما جوجا ميل عن حلقة الحين ذاتك أن فانسنين إلكشن كانوا علي هذا إلكشن بالراحة وقفك حزبك صوبها وقفك صوبها فين نعم المراد كدور قفا أسرحن وإنه قف مراد كدور ذاتك ورشدة حيرتها ما تدعي هل كان Soomaali badan baa tuban waxay ku kala tuban yihiin qof oo haysta qofku taageersan aadiyaas waxa uu kala taageersan yahay fikirka qofku ka helo garisnimada Soomaalinimadu waa number 1 iyo wax saabsan family sometimes ciyaalka xaafadda ku jirta badan baa lagu socda marka wuxuu socdaa si wanaagsan labada qof oo kaliya ka hartay oo soo xiro district kali marka Soomaalida oo dhan waxaan u jeediyay cid walba ummadan waxa qabanaysa waad maasan tahay waxaa halkaa taagan Yuusuf Ogaas Yuusuf soo dhawow marka hore kaasi waa abwaan Orshe oo ka mid ah abwaanada Soomaaliyeed aad baan ku salaamayaa abwaan Orshe waaya Yuusuf waay waay thank you kaasi waa Yuusuf Ogaas oo ka mid ah dhalinyarada Soomaalida daawadayaal dad badan ayaa tartamaya baabuurkan waxaa lagu taageerayaa biixi oo ka mid ah baabuurtu way badan yihiin gabadhaas ilaanay biixi taageersan tahay adigana biixi taageersan ahayn waayahay halkan Saciido Shaaciye waa gabar kale oo Soomaaliyeed boorkeeda Jamaal Cusmaan ayaa jira isaguna wiil Soomaali ah Soomaalida tartamaysa daawadayaal aad bay u tir badan yihiin maanta ayaa lagu wadaa saacad kadib in natiijada la soo saaro dadka intooda badan waxay taageersan yihiin Ilhaan Cumar oo iyadu u tartamaysa Congress-ka Mareykanka aad baan idin salaamayaa kan waa Jamaal Cusmaan aad iyo aad ninkan AJ ayuu taageersan yahay asagana hooyada Soomaaliyeed ما شاء الله ما شاء الله ننعى حتى لغيبنا مشان بس كان اي جي عود اي تاجر سيهين wiilkaas AJ Xasan oo taageersan yahay waxaan ku suganahay xaafadda Soomaalida u badan tahay ee Cedar
doorashada intaan lagu dhawaaqin ka hor ayay Soomaalidu sii dabaaldegayaan taasina waa kalsooni ay ku qabaan in natiijada ay dhinacooda ay soo marto kursigan waxaa ku tartamaya dad badan oo Soomaali ah ayaa wada tartamaya oo ah dhalinyaro Soomaaliyeed dalkan wax ku baratay kole guushu mid kamid ah ay raaci doontaa dhalinyarada tartamaysa waxaa kamid ah Suud Colaad waxaa sidoo kale kamid ah Siciida Shaaciye Nabiha Maxamed assalaamu calaykum aad baan idin salaamayaa ninkaasi waa mid kamid ah dhalinyarada Soomaaliyeed haye maasha Allah maan dareenkaada ka waran haye maasha Allah aad baan idin salaamayaa waad mahadsantahay walaalkay dadka way kala duwan yihiin halkan waxaa taagan hooyooyin Soomaaliyeed maasha Allah ilahana taageersan yihiin dhankana dhalinyaradii ayaa kubadda ciyaaraysa waxay ku sugayaan ilaa looga dhawaaqayo natiijada sarahan waa saraha Soomaalidu ay degan tahay Cedar natiijada waxaa lagu dhawaaqayaa goor dhow daqiiqado yar ayaa ka dhiman dadkuse waxay muujinayaan shucuurtooda dadkana arkaysaan waxay u soo kala codeeyeen qof kastaba qofka uu taageersan yahay aad baan ku salaamayaa maasha Allah dadkan waxay taageersan yihiin AJ waa wiil sharci yaqaan ah waa sharci yaqaan Soomaaliyeed aad iyo aad ninkan waa Jamaal Cusmaan asagana sidoo kale taageerayaal badan halkan ku haysta
waayahay daawadayaal waad arkaysaan intaan la gaarin natiijada doorashada Soomaalidu aad bay u dabaaldegaysaa daqiiqad kastaba waxaa la soo tabinayaa warar iskhilaafsan oo sheegaya in qof hebel guulaystay laakiin ilaa iyo hadda natiijo rasmi ah oo daawadayaasha TV-ga Universal aan la wadaagi karno ma hayno waxaana ka warqabnaa in natiijada lagu dhawaaqi doono daqiiqadaha ugu dambeeya weli waaye natiijada weli waaye waxaan rajaynaa ay stadium sababtoo ah hadda ayay soo xirantay codeyntii kadib waa la tirinayaa marka la tiriyo la hubiyo ayaa lagu dhawaaqaa dadka u tartamaya Ward 6 waxaa ka mid ah Jamaal Cusmaan Cabdirasaaq Biixi Nabiha Maxamed AK Xasan Saciida Shaaciye AJ Awad Cabdirasaaq Biixi Maxamuud Xasan BBC malhar ayuu isaga haray Saciida Shaaciye ayaa ka mid ah وكذا والله شيء ماشي الآن تقول ما شيء هاي ماشي تقول بس ما بقدر هذا سوى راسي ولا قصة منها ويكمل مع سويسان ما شاء الله السلام عليكم الحمد لله ان شاء الله عفوا